Assalamu allaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaalyal, waa salaamintiin meel kasta aad joogtaan. Waxaan maanta idin soo gudbinayaa xigmado dhiira gelin ah. Ku soo dhawaada mowduucayna maanta. Saaxiibtinimadu ma aha qofka aad mar walba isla joogtaan oo aad waqti badan wada qaadataan, balse saaxiibku waa qofka mar walba garabkaaga taagan xilliga aad wajahayso xaalad khatar ah ama marka aad ku sugan tahay xaalad dhibaato, iyo xilliga aadan dhibka ku jirin oo aad ku sugan tahay baraar. Ka faa'iidayso oo si fiican u maareey waqtigaaga. Dib waad u akhrisan kartaa buug, fariin ama joornaal. Dib waad u daawan kartaa muuqaal ama mid dhegeysi ah, balse ma jiro nidaam dib kuugu soo celin kara haddii uu waqtiga kaa tago oo aadan waxba ugu faa'iidaysan. Hagaaji waqtigaaga inta ugu badan si aad u noqoto qof wax soo saar leh. Waqtigu waa mid aad u qiimo badan, mudanna in laga faa'iidaysto loona isticmaalo si habboon. Haddii qof si dhab ah uu u danaynayo inuu qayb ka noqdo noloshaada ama rabo inuu kula wadaago nolol, wuxuu si dhab ah u sameeyaa dadaal aan kala go' lahayn si uu ugu soo biiro noloshaada ama u hanan lahaa naftaada. Nolosha oo la wadaago ma aha wax sahlan ama wax afka kaliya laga dhaho. Xumaan kasta ku bedel wanaag iyo naxariis. Xilli kasta aad dareemayso murug dhoola cadde, ku qanacsanaa waxa aad haysato, laga yaabay qof kale inuusan haysan. Noqo qof dadka saamaxa cafiya mar walba. Marka aad ka shakiso naftaada heerka ay joogto, xusuuso ilaa inta aad soo halgantay, soo dhabar adeegtay, dhibaatooyinka aad ka soo gudubtay, shaqooyinkii aad ku soo guulaysatay iyo safarkii dhibka badnaa aad soo martay. Markaas ayaa dareemaysaa heerka aad joogto iyo heerka aad gaari karto. Xariirku kuma xirna isku soo dhawaansho, wicid joogta ah iyo masaafo dheer, laakiin wuxuu ku xiran yahay in la helo aaminaad, kalsooni iyo daacadnimo. Dadku ma oga xaalad kasta ee aad ku sugan tahay, murugadaada, xanuunkaaga, dhibkaaga, baahidaada, oohintaada iyo farxadaada. Laakiin waxa og Allihii naxariista badnaa, Allihii dambi dhaafka badnaa, Allihii ku jeclaa. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa og xilli kasta waxaad ku sugan tahay. Waa inaadan marnaba rajo dhigin oo aadan quusan. Waa inaad la imaataa dadaal wanaagsan iyo niyad wanaagsan. Allahna tala saaro. Haddii aad markii ugu horreysay soo booqatay channelkan, fadlan subscribe saar si aad u hesho barnaamijyo xiiso badan. Si mar kasta ay kuu soo gaaraan barnaamij walba cusub aan soo gelino, waxaad taaban kartaa sumadda gambaleelka ah ee dhanka midig ka xigta subscribe-ka.